رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإيانا وإياكم من فتن والضلالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه تحية الإسلام، waxaanu kusoo guda jirnay fadliga rabadaan iyo sidii rabadaanta looga faa'iidaysanayay. rabadaanta iyo alla subxaanahu watacaala ciduu waajib kaga yeelay, alla subxaanahu watacaala siduu ummadiisa ugu fududeeyey, oo kii safarka ahaa iyo kii xanuunsanayay uu haddana dib ilaahay ugu dhigay. nebi maxamed siduu ugu bishaarayn jiray, asxaabtina isku bishaarayn jireen, taabiciintiina isku bishaarayn jireen. wixii o dhan intii ilaahay naga garansiiyey, ilaahay naga karsiiyeyna waanu ka soo hadalnay. haddana waxaynu ka hadli doonaa waa qur-aanka iyo bisha rabadaan akhriskeeda faa'iida leedahay. tilaawat alqur'aan wa mudaarasatuhu, waa qiraa'at alqur'aanka oo qofku akhriyo iyo barashadiisa oo weliba uu sii barto ama cida uu sii baro. saan wada ogsoonahay, horta mudaarasadu waxaa barasho ahaan baa looga jeeda, laakiin soomaali ahaan haddii lagu macneeyo waa subcis ahaan xaggan. waxay noo caddaynay xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam. fafii xadiiin baa inoo caddaynay, wuxuu leeyahay xadiiskaasoo weliba akhrajahu bukhaari walmuslim ay soo wada saareen. waxa uu leeyahay: ana jibriila kaana yulaqi alnabiya sala allahu calayhi wasalam fi kuli leylati min rabadaan. malaku jibriil wuxuu ahaa mid la kulma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam habeen kasta oo ka mida rabadaanta. fa yudaarasuhu, wuxuu la daraasayn jiray alqur'aana qur-aanka yacni waa la subcin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. muu ahayn markaa mid ka habsaama waqtigii rasuulka ay wada ballameen ama hawshiisa ay tahay. marka inaad rabadaantii aad qur-aanka akhrido ood u faaruqdo, ood wax walba aad faraha ka qaataad iska dhaafto, fadli iyo khayr dheer ayay leedahay. waa bishu soo degay, waa bisha allah subxaanahu watacaala ummaddan uu ugu bishaareeyey waxyaalo fara badan oo khayra. saa la ajligeed inaad mar walba akhridaa waa shay loo baahan yahay, walow aanu loo baahnaynba inuu ka marnaado afkaaga iyo qalbigaaga, uu ka marnaado qur-aanka ilaahi subxaanahu watacaala. waxaa kaloo aan isku baraarujinaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aad iyo aad ummadda ugu baraarujin jiray, ama sunno uu markaa ka dhigin jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. taftiiru saa'imi waa inuu qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam, qofka binu-aadmigaa sooman uu afursiin jiray, kuna dadaali jiray siduu afurkuu siin lahaa. man fatara saa'iman buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam, man fatara saa'iman kaana lahu midla ajruh, waxaa u sugnaatay ajarka qofka soomanaa soonkiisii ajarkiisii oo kale u soconaysa. kayra annahu laa yanqisu min ajri saa'imi shay-an, kii soomanaana ajarkiisa laga nusqaamin maayo, kii kale ee afuriyeyna ajarkoodii midna la nusqaan maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam. xaggaa waxaanu ka faa'iidaysanaynaa nimcada ilaahay subxaanahu watacaala iyo farxadduu ilaahay ummaddiisa siinayo, iyo siduu ilaahay khayrka ugu yeedhayo, inay aad iyo aad u ballaaran tahay oo la rabo marka inaynu ka faa'iidaysano. soomka aad soomanayd
ood haddana kusii darsatay inaad qof kale sii afuriso oo ajarkii uu shaqaysanayay mid lamid ah aad qaadato, adigana kaagii aan la nusqaaminin, kaagii kalena uu reserve kuu noqdo, waxaa ka wanaagsan. waa shay aad iyo aad u muhiimsan oo aad iyo aad loogu baahan yahay. ilaahayna wariga insha allah biidni illahi tacaala kuwii ka faa'iidaysanaya biidni illahi tacaala hadalkaa rasuulka iyo hadalka ilaahay subxaana wa tacaala. waxaa kaloo bisha Ramadaan ajarkeeda in lasii labalaabaa oo lasii 10 jibaar laabaa waxaa ka mid ah sadaqada. qaala ibn Cabbaas radiallahu canhu ayaa wuxuu yidhi, ibn Cabbaas wuxuu leeyahay radiallahu canhu, ilaah raalli ka noqdee, kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, ajwad annaas, wuxuu ahaa mid aad u faxalsan oo faxanimo ayuu nebi maxamed aad iyo aad dadkoo dhan ba nebi maxamed u faxalsanaa. wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan, wuxuu weliba aad u sii faxalsanaa oo aad wax u sii bixin jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ramadaanta gudaheeda. wa kaana sala allahu calayhi wasalam ajwada bilkhayr, wuxuu aad iyo aadna u bixin jiray shay kastoo khayr leh oo saa uu haddana wuxuu bixinayo wuxuu ugu dheeran jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ama uga degdegi jiray min riixi mursila, dabaysha la soo diray, dabayshaa socota ayuu aad ugu dheeran jiray khayrka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ramadaanta. wuxuu u dheeran jiray oo musric u ahaa oo marnaba aanu ka daari jirin inuu sadaqa la baxo ayuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marna kamuu daari jirin, marna kamuu fadhiisan jirin. dabayl socotana waa ugu dheeri jiray. marka waxay nooga sugnaaday meeshaasna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa inaanu ku dayano. ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, laqad kaana lakum uswatun xasanatun fii rasuuliillah, xaqiiqadii dhabtii waxay idinku sugnaatay nebi maxamed sunnadiisa iyo dhaqankiisa sifo wanaagsan iyo ku dayasho wanaagsan. innagana waxaa laynooga baahayay saasoo kale inaynu ugu degdegno khayrka, sidaasoo kale inaynu ugu dadaalno wax kasta oo inoo dhoweynayo ilaahay subxaanahu wa tacaala. ehelkeena iyo walaalaheenna ay nagu jeclaanayaan, nafteennuna ay ku degasay ku xasiloonayso. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwii dhaqankii rasuulka qaata calayhi salaatu wasalaam, samir iyo daacad ku qaata, sifaad iyo socod ku qaata, iyo sunnada rasuulka ay ka muuqato. allah inaga yar dhammaanteen wax kastoon hagaajinayna ilaahay iyo rasuulkii ka sugnaadeen, shay kastaan kharibina nafteyda iyo shaytaan bay ka sugnaatay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa wixii aan hagaajinay miisaanka xasanaadka anu ilaahay noo wada saaro, wax kastaan kharibina ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeedii dunuubteeda ilaahay naga cafiyo, khayr iyo wanaag iyo sharaf iyo cisin ilaahay noogu bedelo. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha allah cisigiisa iyo sharafkiisa iyo kamaalkiisa agtiisa iyo alla inu ilaahay korkeena ku shubaa in ilaahay ka baryaynaa. cisi iyo sharaf iyo cid kale waxna uga dooni mayno aan allah ahayn subxaanahu wa tacaala. ilaahayna waafajiyo xaqa, dembigeena iyo dembi waarkeena allah dhaafo, toobadda allah inagu dilo, toobadda allah inagu nooleeyo, toobadana allah inagu soo saaro insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.